معالي الشيخ سعادة شيخ محمد عمر الديرر مفتي البلاد، فضيلة الشيخ وعلم على رأسه نار ومبانا تعريف runtii waxaan rabnaa waa sekreteerka xisbiga mucaaradka mooshinka igu keenay marka waa inaan ka soo duldhaco. ilaahay ha barakeeyo sheekhna, ilaahay noo barakeeyo isagii cilmigiisa iyo faa'iidada ummadda u galay kama qarsoona maaragtay laydkaa baxaya isagaa ka iftiin badan. ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo raadkii iyo khayrkii insha allah ummadda u hormariyey ilaahay subxaana wa tacaala fi miisaani xasanaati. waxaan rabnaa marka sheekha si ay dadka ugu daydaan inuu in yar oo kooban wixii saameeyey sabab u ahaa dacwadan in uu ma aragtay uu ka dhigto inay u noqoto mustaqbal, ay u noqoto hadaf, in uu iyada uu ilaahay subxaana wa tacaala ku arsuqo. waxaan rabnaa in yar oo kooban inuu naga siiyo halkuu ka bilaabay waxyaabihii saameeyey waxyaabihii ku bixiyey inuu dacwada uu ka dhigto yoolka. jazaahu allahu khayran, falyatafadal mashkuura. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دكتوركو وهرت مهدسن يهايو سيدن كينو naga yara tabciyeed moodaa aniga sheekha wasiir la warka ugu dalacay Dr. Saciid uu naga diyaar tabciye waa ku mahadsan yahay. waa isaga laftiisu wuxuu ka baqayaa inaan ku soo jeestoon idhaahdo adiga daadaadu waa imisa horta. رجعت واسك كايل لروشيا وكاق بالله هل بدي أربع الحس لها وأروى أنا يو وفتشنت إلى كسكو وأنا ضدك وشيك شيكين أنت بدن لكن سلوغة فائدة يستو أيام عاو شيكيا مركز وحويان الوالد أبو الله ونحرسته waxaa uu ka mid ahaa culimadii Soomaalida ee akhri jiray fiqiga iyo tafsiirka iyo cilmiga naxwaha barbarana uu ka akhri jiray. masaajidkan calimataan markii la dhisayna raggii horeeyay ka bilaabay buu ahaa. xaaskii horeeyay inamadu way ka dhinteen waqti lixdameeyadii meelaha aan ku qiyaasayo ayaa wuxuu habeen ka kacay meelahan siyaarada la yiraahdo. dadkeenu siyaar ay dhagaan Soomaha, siyaaro ballaaran oo dadka tolku ay isugu yimaadeen ayuu iska dhex taagay. dadkana sheekh buu markaa u ahaa oo isaga la oranayay ducee. markaa wuxuu waxaan idin sheegayaa culimadii meesha fadhiday iyo dadweynihiiba xaaskii wax wiilala ma laha, kutubtiina wax iga dhaxla ma hayo. waa siday dadku dee aan ka hayo riwaayada tawaaturka ah isku waafaqeen. marka wanka u horeeya aniga caawa ku yabo haya ducaanada caawa idinkan idin weydiinayaa bal inaan kutubta iga dhaxla inay igu ducaysaa maan idinka codsanaya. waxaa markaa mar qura dadku ay yidhaahdeen eray odhan jireenoo caamadeen caadi u ah allaha aqbalo ha samaato ha la helo bay odhan jireen. wixii ay aad u adkaynayaan ha samaato oo ha la helo. eragii bay ku celceliyeen kadibna wuu safray xaggaa kililka shanaad halkan iminka la idhaa ama Soomaalida Itoobiya ay degto. laba sheekh oo ay walaalahaayeen oo midda sheekh Cali Dirir la odhanayay midda sheekh Cabdiraxmaan Dirir ayuu dumarkoodii soo dubaalay. labada sheekhna halkaasay ku geeriyoodeen. markiiba waxa calool galnay aniga iyo nin kale oo aadan la yiraahdo isku filaan aanu nahay. sidii baanu labadayadu ayaanu ku dhalanay. intaa waxa sii raaca oo saameynta u weynaayahay markii dambena wuxuu bilaabay dhowr iyo toban inuu waxna abti u yahay, waxna dhalay, waxna adeer u yahay inuu u bilaabo quraanka una dhameeyo. aniguna kuwaasaan ka mid ahaa kutubta yaryarna u dhameeyo. laakiin ugu dambeyntii aniga xokayn u ahaa ku soo haray. raggii way kala shaqo tageen, wax dibadda tagay, wax meelaha kala galay. aniga xokayn u noqday markaa. adeegaa u ahaa waxyaabo badan oo ragga kale uu ka maago ayaan qaban jiray anigu. oo uu ka mid yahay mararka qaarkood in raashinka u kariyo aayada oo joogta.
wuxuu aad iyo aad u jeclaa inaan diinta barto isagaana ii dhigi jiray qur-aanka ka sako kutubta hoose iyo kutubta dhexeba ilaa 4-5 fan isagaa ii dhigay dardaarankii u dambeeyey wuxuu ahaa markuu sii dhiganayay kitaab hebel iyo kitaab hebel iyo kitaab hebel oo aan kuu dhigay oo uu ka mid ahaa camriidiga kafraawiga cumdatu saaliga kutubtaasoo akhri ilaahay ha kuu sakhiree diintana ku dadaal dardaarankaasaa ugu dambeeyey saasaanu adduunyada kaga tegay marka midhka halkaa aan kala soo baxay waxa weeye intii ka dambaysay markuu geeriyooday waxaa aad iigu sahlanaa inaan wax akhristo mararka qaarkoodna dadaal da'da yare dhallinyarada kale aan qaarkoodba hadda joogaan aanay bixin jirin baa ilaahay ii fududayn jiray oo awooddayda ka baxsan mararka qaarkood ma garanayo kitaab aan akhristay oo aan ku soo celiyey isamaani maayo laakiin dhallinyaradu baan uga jeedaa inay inagu daydaan juhdiga iyo dadaalkaasi waxaan isleeyahay ducadaasaa door weyn ku lahayd marka sheekada waxaan ku keenay dhallinyaroy ducada waalidku waa wax aan la sahashan karin qiimo aad iyo aad u weyn leh arrin kasta oo kugu adkaada markaad waalidka ku adeecdo laba arrimood buu ilaahay kuu sahlayaa wixii aad doonaysana inaad hesho dadkaagana ilaahay uu kuu sahlo kuwaad adigu dhasho soomaaliduna waxay odhan jireen 3 arrimood midna kaama hadho kuftin jilib kalaam waalid iyo kaba subag haddaad subag cabto dacar baa kugu kiciyo kaa hadhi mayso haddaad jilibkaa u kuftana wuu kugu soo kacdoomi doonaa kalaamka waalidkuna duca iyo habaar mid kastuu yahay wuu ku daba socdaa marka casri fitnaa baynu joognaa waalidka ha la adeeco wax weynoo cajaabiyada ba idinka arki doontaan saameyntayda u weyn taasaan u aanaynayaa dee waafajintuna waa iska halkeedoo qofku inuu barnaamij samaysto uu ku howlgalo aad bay muhiim u tahay anuu waqtiyadii aan wax akhrisan jiray ciidaha maan fasax qaadan jirin jumcayaashana maan fasax qaadan jirin muddo 7 sannadood gaadhaysa filimada maan geli jirin sportska maan geli jirin riwaayadahana maan geli jirin arrintaasi markaa waxaa ii sahashay shay 10 sano lagu soo ururin karo 2-3 sano inuu ilaahay waafajiyo is-ammaani mayno laakiin waxaan filayaa dictoorku inuu uga jeedo uun da'yarta inaga dambaysaa inay wax inagaga daydaan ilaahayna ha inaga dhaafo haddaynu xoogaa buubuunina ku darnay way iga dhantay dictor جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ إلهي سبحانه وتعالى هكو بركاي شيخنا قضاء وحبات كلا حكم السي وحبات فتواتي وحبات ديكتي waxaan shaki ku jirin in aad waajahday ama ay kugu tii nawaaqif aad ka yaabtay ama aad ka naxday ama ka qosliyay su'aalihii dadka ay ku weydiin jireen ama dadka aad kala xukmisay maxaa kugu yaab badnaa maxaa cibar lagala bixi karaa aad ku xusuusataa ku soo dhow fadil sheekh ilaahay kolley dee shayga markaanad qorin aanad dabagelin sidaa dictoorka oo kale wax badan baa ku dhaafaya laakiin su'aalaha runtii aan aad uga yaabo waxaa ka mida baryahan dambe marka fatwada oo kale waxyaabo aan dhaqan inoo ahaan jirin horay ayaa kuu imanaya ruux dumaraba maalin maalmaha ka mida waa ii timid mabay fogaynba maxay leedahay sheekhow musiiba ay haysataa kala deeg hadda dhaqan xumadu halkay maraysa iyo diinla-aantu odaygii baa waxaan ka kari la'ahay inantiisii gabadhiisii waa tii uu dhalay ayaan ka kari la'ahay maxaa yeelaa sheekh waxaan anigu qabaa inaan ka furanahay ayaan anigu qabaa markaa waa arrin jiqigu noqday buu noqday haddaan idhaahdo ka car reer baan duminayaa haddaan idhaahdo ku joogo halkaasii joog arrin ka weyn weeye haddaan idhaahdo isagii u yeedh waxaaba laga yaabaa inuu idhaahdo maxaad sheekha igu sheegtay uu qoorta gooyo marka runtii waxyaabaha igu yaab badnaa ayay ka mid ahayd siyaabo kale ayuun baan dee ugu jawaabo aan u maareeyey kuwayaalaha ugu yaab badan bay ka mid ahayd wax laga naxway fadiilad sheekh marba waxaan youtube-ka iyo facebook-gaba aan ka arkay barnaamij sports adoo waddada isku dhibagay oo xawli ku socda marka barnaamijkaas waxyaabihii kugu dhaliyey iyo faa'iidadii aad heshay
iyo reactionka dadkaan u baahan jazaaka allahu khayr waad ku mahadsan tahay su-aasha adii yar fududaysay jasaaka allahu khayran horta arrinkaasi si yaro kadiisu u dhacay anigoo meel iska lugaynaya ayaa nin kabarad sitaba igu soo baxay oo dhallinyaradana watan kabaradda lagu saliday moogta isla kaysa wariyey hal min suura iyo wax un bay had iyo jeer ku qabtaan gaarigaa meel dhigtay waa iska lugaynayay wuu isoo helay waa igu qabtay markii dambena microfoonka ayuu si yaroo dhaqso ah iigu dhoweeyey kelmad yaro jeediyay oo dadkii dee aan ku dhiiri gelinaya inaanay si xaydh fadhida aanay u noqonin inay yaro dhaqdhaqaaqaan yaro dhiiriya laba arrimood unbaa markaa igaga soo noqday midi waxa weeyaan sheekhu waxay yidhaahdeen war ma wuxuu fududeeyuu fasaxay barnaamijkii kaalay ila lugee kaalay ila lugeedu show waa barnaamij iga horreeyey buu ahaayo dumarka hargeysa qaar ka mid a ayaa show ku yaro baaqay oo waddooyinkay show lugeeyaan wax kaloo kusii hoos jira garan maaye kaalay ila lugee barnaamijkii la odhan jiray kii baaba sheekhu fasaxay bay idhahdeen qolo kalena waxay yidhahdeen oo sheekhiisa ka youtuber buu noqdee markaad youtube-ka isku xayeysiiya ayaanu noqday marka taasina kolley sidaasay ahayd laakiin barnaamijka iska kadiska ah ayuunbuu runtii ahaa جزاك الله خير فضيلة الشيخ وعن وجود بيا بإذن الله سبحانه وتعالى سؤال شكله وحاسكله فضيلة الشيخ الشريف طويل